السلام عليكم أصحابتا أرنتان waxay qusaysaa dadka iPhone-ka isticmaala anigu asxaabo Android ayaan ku jira shirkadda Apple iyo khuburada ayaa hadda waxay ku boorinayaan dadka iPhone isticmaala si xogtooda ay u ilaashadaan waa inay update ku sameeyaan software-ka taleefankooda meel kasta joog haddii aad iPhone isticmaasho talaabadan degdeg ku qaad si xogta taleefankaada kugu jirta aad u difaacato sanadahan hackers-ka waa ay soo bateen hadda waxa la leeyahay 184 milyan oo password ayaa la xaday marka sawiradaada bangi account-yadaada sidoo kale meesayada aad dirto si aad u difaacato talaabadan qaad waa degdeg waliba hadda wax yar ka hor ayay arintan soo dhacday marka software-ka ku jira taleefankaada iPhone-ka iOS-ka 18.5 waa inaad la soo degtaa isla markaana update aad dhahdaa talaabo yar waaye setting-ka ayaad marka hore ku dhufanaysaa kadib general ayaad ku dhufanaysaa kadibna waxaad leedahay software update agree ayaad leedahay xoogaa ayaad sugaysaa haddii internetkaada uu fiican yahay 5 daqiiqo ilaa 4 daqiiqo ayuu isku update gareynaya taleefankaadu kadib uu isdaminayaa wuuna soo kacayaa markaas kadib wax kasto oo protected ayaa tahay oo waa difaacan tahay marka sidaa darteed haddii internetkaada uu culus yahayna 20 daqiiqo 15 daqiiqo hadba inta qofka internetka uu isticmaalo xawaaraha uu leeyahay ay ku xiran tahay laakiin waa muhiim waa arrin degdeg ah Afrika joog Asia joog Europe joog America joog meel kasta ama Australia joog haddii telefoon iPhone aad isticmaasho Apple waxay ku boorinaysaa maadaama laga cabsi qabo kooxahan hackers-ka inay u soo dhacaan telefoonada in software-kaasi iOS-ka 18.5 waa inaad la soo degtaa haddii uu horey kuugu degsanaana iska hubi inuu update ku yahay iska update garay guriga haddii aad dhowr qof iPhone aad ku isticmaashaan ama qof aad taqaano u isticmaalo arrintan degdeg ku kaarsii waa muhiim dadka iPhone-ka isticmaala iOS-kaas 18.5 inay la soo degaan shirkadda Apple-na waa ay ku boorinaysaa khuburaduna waa ay ka digayaan kooxaha hadda hackers-ka aad ayay u soo bateen waxaa jirta in meelo badan loo dhacayo marka si xogta kugu jirta taleefankaada wax kasta ayaa kugu jira bangi account-yadaada sawiradaada kuwa fiican iyo kuwa xunba hadday ahaayeen halkaas ayay kugu jiraan adiga ayaa og marka si aad xogtaadaas u ilaashato waa in aad software-ka update ku samaysa iOS-ka 18.5 aad la soo degtaa talaabadaasi qaad yar setting-ka tag general ku dhufo software update markaas kadib agree ayaad leedahay waadna sugaysaa ilaa uu iska update gareynayo taleefankaadu markaas kadib Face ID maad ku xiranaysaa iyo waxyaabahaas uu ku weydiinaya haddii aadan rabinna later ayaad ku dhufanaysaa markaas kadibna taleefankaadu markuu isdamiyo wuu soo kacayaa sidaasi ayaana protected uu ku yahay marka talaabadaasi qaad haddii aad guriga iPhone ka wada isticmaashaan isgaarsiiya qof aad taqaana haddii uu jirana la wadaag arrintaasi waa muhiim waxaan jeclaystay asxaabta inaan la wadaago